Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii gorfaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah hordhaca kulanka Manchester United iyo Arsenal iyo wax walba aad uga baahan tahay iyo boosaska lagu kala badin karo. Messi oo mar kale muujiyay sababta loo yiraahdo GOAT. Erling Haaland oo rikoor cusub ka dhigay Pep Guardiola iyo Manchester City. Barcelona oo Roberto Lewandowski ku bedelaysa gool dhaliyo farta ka xiran. Waxaan rabaa inaan ciyaartoydan aan kala yareeyo laba xidig oo Arsenal ku sababay inay ka noqdaan xabaacsiga ay ugu jireen Ibir Rize. Real Madrid oo go'aan ka soo saartay mustaqbalka Rudiger iyo Alaba. Liverpool oo durba shaacisay bedelka Ibrahima Kanute. Bruno Fernandes oo sharaxay sababta uu u diiday ku biirista Al Hilal. Arsenal oo si degdega u diiday isweydaarsi Real Madrid ay ku doonaysay ciyaaryahan William Saliba. aynu ku bilownay kulanka ugu weyn toddobaadkan Premier League ayaa ka dhici doona garoonka taariikhiga ee Old Trafford, halkaasi ay ku wada ballansan yihiin Manchester United iyo kooxda Arsenal. Kulankan ayaa kulan xiiso leh oo labada kooxood wada qaadan doonaan. Premier League Ingiriiskana ka tirsan 30 daqiiqo ayaa la daawan doonaa kulan ciyaareedkani. Haddii aynu fiirino xogta kulankan, Manchester United waxaa laga badiyay kaliya laba ka mid ah 18 kulan ay ugu dambeeyay Premier League ay gurigeeda kula ciyaartay Arsenal. Labada gool daro waxay kala kulantay tababaraha haatan kooxda leelinayay Mikel Arteta. Arsenal ayaa shabaqa soo taabatay 11 kulan ay ugu dambeeyay Premier League oo ay marti u ahayd United. taasina waa horumar weyn marka la barbar dhigo 22 kulan ee ka horeysay oo kaliya 10 kulan ay shabaqa soo taabteen. Manchester United ayaa guuleysatay 99 ka mid ah 243 kulan oo ay la ciyaartay Arsenal tartamada oo dhan, waxayna kaliya ku guuleysatay Aston Villa tirada ugu badan oo 107 jeer in ka badan Arsenal. Haddii ay guul gaaraan kulankan, Manchester United waxay noqon doontaa kooxdii ugu horeysay taariikhda Ingiriiska ee Arsenal ka gaarta 100 gool. waa markii labaad taariikhda horyaalka Ingiriiska oo Manchester United martigelinaysa Arsenal kulankeeda ugu horeeya xilli ciyaareedka. Markii ugu horeysay waxay ahayd 1989 markaasna Manchester United ayaa 4 gool iyo hal ku garaacday kooxda Arsenal. Haddaba waa halkii meelaha lagu kala badan karo. Benjamin Sesko iyo William Saliba. Weeraryahanka cusub ee Manchester United Benjamin Sesko ayaa kulankiisii ugu horeeyay ka ciyaari doona Premier League xilli uu doonayay in Gunners uu tusiyo seegitaankii kadib niyad jabkii baacsigiisa ay ka qaadeen. Hase yeeshee William Saliba oo ah daafac adag oo Arsenal ayaa la filayaa inuu kooxda ka difaaco xirfadiisa iyo awoodiisa jireedba. Harry Maguire iyo Victor Gyökeres waxaa jiri doona dagaal kale oo dhinaca weerarka iyo difaaca. Arsenal waxay haysataa Victor Gyökeres oo xagaagan ku soo biiray kooxda, halka United ay daafaca ku aamini doonto Maguire. Labada ciyaaryahan ayaa si toos ah u saameyn doona kulan ciyaareedkan xiisaha leh. Bruno Fernandes iyo Declan Rice waxaa la filayaa in kulanka lafdhabar uu noqon doono Bruno Fernandes kabtanka United, Declan Rice oo hogaamiyaha qadka dhexe ee kooxdiisa oo la filayaa inay si weyn ugu hardamaan kulankani. Lionel Andres Messi ayaa mar kale inta baal dahaba ka galay taariikhda kadib markii uu dhaliyay goolkiisii 875 xirfadiisa kulankii Inter Miami ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay La Galaxy. Messi ayaa ka soo laabtay dhaawac gaaban, wuxuuna ciyaaray 45 daqiiqo, balse wuxuu saameyn degdeg ku yeeshay ciyaarta isagoo shabaqa ku hubsaday gool qurux badan oo la xusuusan doono. Messi wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee caalami ay gaara 875 gool, wuxuuna sidaasi ku gaaray kaliya 1116 kulan, rikoor aan ciniba gaari karin. Goolkiisa wuxuu ku dhaliyay qaab ciyaareed xirfad leh oo cajiib ah oo dib u xasuusinaya bandhigiisii heerka sare ee Barca. Messi wuxuu hadda 63 gool ka hooseeya Cristiano Ronaldo, waxaana la saadaalinayaa inuu gaari doono 1000 gool mustaqbalka dhow. xirfadiisa 389 caawin, guud ahaan 1263 gool marka la isku daro caawinta iyo goolashiisa. safarkiisa wuxuu bilowmay May 1, 2005 markaasi uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Barcelona isagoo 17 sano jira. Ronaldinho ayaa kubaddaasi u dhigay meel wanaagsan. Tani ayaa ahayd bilowga sheeko ciyaareedka taariikhiga ee soconaya in ka badan 20 sano kuna qoran yahay magaca Leo.
weeraryahanka reer Norway Erling Haaland ayaa noqday ciyaaryahanka goolasha ugu badan u dhaliyay Manchester City Premier League xilliga Pep Guardiola. Haaland ayaa shabaqa soo taabtay ciyaartii furitaanka horyaalka 4 gool iyo waxba ay kaga adkaadeen Wolverhampton Wanderers isagoo dhaliyay goolkiisii 86aad Premier League kaliya 98 kulan gudahood. Haaland 86 gool 98 kulan, Raheem Sterling 85 gool 194 kulan, Sergio Aguero 82 gool 125 kulan. Haaland ayaa sidaasi ku dhaafay Sterling oo hore u haystay rikoorka guulka ka hor intaan Aguero kaalinta saddexaad kaga jirin liiska. 24 sano jirkan ayaa weli haysta waqti dheer oo ku sii jabin kara rikoorro badan, waxaana muuqata inuu noqon doono halyeyga ugu weyn ee taariikhda gool dhalinta Manchester City ee horyaalka. Kooxda Barcelona ayaa qorsheynaysa in mustaqbalka weerarkeeda iyagoo bartilmaameed ka dhiganaya xidiga England ee Harry Kane, kaasi oo hadda ka tirsan kooxda Bayern. Kane ayaa loo arkaa bedelka ku habboon Roberto Lewandowski, kaasi oo qandaraaskiisa Camp Nou uu dhacayo xagaaga 2026. madaxweynaha Barcelona Juan Laporte ee agaasimaha ciyaaraha Deco ayaa doonaya inay ku celiyaan khibradii ay ka heleen Lewandowski sanadii 2022 markaasi uu weeraryahanka Poland uu si degdeg ah saameyn ugu yeeshay kooxda. Harry Kane oo 32 jira ayaa xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 44 gool tartamada oo dhan, taasi oo ka dhigaysa fursad cajiib ah oo ku xoojin kara weerarka kooxda Barcelona. Inkastoo Harry Kane uu qandaraaska kula jira Bayern uu gaaraya sanada 2027, qiimihiisa suuqa kala iibsiga ayaa lagu qiyaasaa inuu hoos uga dhacay 50 milyan marka la gaaro sanada 2026, taasi oo ka dhigaysa heshiiska mid macquul ah haddii ay u dhaqaaqaan. Haddii heshiiskan la dhammaystiro, Harry Kane ayaa hogaamin doona weerarka kooxda Barca isagoo garab ka helaya dhalinyarada soo kacaysa sida Lamine Yamal, Rafinha, taasi oo Barcelona u sahli karta inay si toos ah ula tartanto horyaalada gudaha iyo Yurub iyadoo aan loo baahnayn waqti badan oo isbedel. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in tirada ciyaartoyda kooxdiisa ay haatan xad dhaaf tahay, isla markaana uu doonayo in qaar ka mid ah kooxdu ay ka baxaan. Guardiola ayaa hadalkan jeediyay kadib 4 gool iyo eber oo ay ku xaqeen kooxda Wolves kulankii furitaanka Premier League. Weeraryahanka reer Norway Haaland ayaa dhaliyay 2 gool, halka labada xidig ee cusub Tijani Reinders iyo Ryan Cherki iyaguna ay shabaqa soo taabteen. Inkastoo guul weyn ay heleen, Guardiola ayaa ka cabanaya tirada badan ee ciyaartoyda u haysto. Aad ayay u badan yihiin, waa dad aad u ballaaran. Waxaan jeclaan lahaa in loo helo kooxo ballaaran si tartamada oo dhan ay ugu tartamaan, laakiin ma doonayo in ciyaartoy guriga lagu reebo, taasi aan caafimaad u fiicnayn, ma abuuri karo jawi iyo niyad wanaagsan oo lagu tartamo. Guardiola ayaa intaasi ku daray inuu rajaynayo ciyaartoyda iyo wakiiladoodu inay helaan xal toddobaadyada soo socda. Warbixin cusub ayaa sheegaysa in Arsenal ay isaga baxday tartankii ay ugu jirtay ciyaaryahan Ibrahim Riise, kaasi oo ka tirsan Crystal Palace, sababtoo ah ma doonayaan inay ka hor istaagaan horumarka laba ciyaartoy oo da'yara. Ethan Nwaneri oo xilli ciyaareedkii hore si weyn uga soo ifbaxay ayaa qandaraas cusub u saxiixay kooxda, isagoo diiday inay Chelsea iyo Dortmund uu ku biiro. Sidoo kale Maxi Doman ayaa loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hibada badan ee akademiyadda, iyagoo sugaya fursad ay ku dheelaan. Arsenal ayaa la rumaysan yahay in mustaqbalka weerarka kooxda uu ku tiirsanaan doono labada ciyaaryahan ee soo kacaya, saas daraadeedna aysan doonayn in Ibrahim Riise oo 27 sano jir ah ay ku carqaladeeyaan horumarkooda. Arrinkan ayaa u sahlaysa Tottenham fursad dahabi oo si fudud ay ku dhammaystiri karaan heshiiskiisa, waxaana la sheegay in heshiiska uu ka badan yahay 60 milyan oo la soo gabagabeynayo toddobaadyada soo socda, iyadoo Eze uu horey u heshiis ula gaaray kooxda Spurs. Wargeyska AS Spain ayaa sheegay in Real Madrid aysan qorsheynaynin inay cusboonaysiiso qandaraaska Antonio Rudiger iyo David Alaba, kuwaasi oo xagaaga 2026 ku eg.
go-aankan ayaa micnihiisu yahay in xilli ciyaareedkan uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee labada daafac ay xirtaan maaliyadda Los Blancos. Inkastoo kooxda ay rajaynaysay inay iibiso Alaba xagaagan, haddana xidiga Australiyaanka ayaa diiday inuu si fudud kaga baxo kooxda isagoo doonaya in uu ismuujiyo. Dhanka kale, Antonio Rudiger oo bandhig wanaagsan sameeyay maamulka Madrid ayaa rumaysan in waqtigiisa uu haatan soo dhamaaday. Waxaa xusid mudan Real Madrid ay xagaagan la soo saxiixatay Dean Hudson, isla markaana ay qorsheynayso inay la wareegto daafac kale ha noqoto xagaagan ama xagaaga dambe. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa la xiriirtay daafaca Barcelona ee Ronald Araujo, kaasi oo loo arko beddelka rasmiga ah Ibrahima Kanouté haddii uu ka dhaqaaqo Anfield. Wararka ayaa sheegay in Real Madrid ay xiiso u qabto Ibrahima Kanouté, iyadoo wadahadaladii qandaraaskiisa ay istaageen haddii uu ka tago kooxda. Liver ayaa qorsheynaysa inay dalab culus ay u gudbiso Araujo, kaasi oo qandaraaskiisa Barcelona uu ku egyahay sanada 2031. Si kastaba, Barca waxay u aragtaa Araujo xidig muhiim u ah oo aan si fudud loo fasixi karin, iyadoo dhaqaale ahaan xaaladda kooxda iyo rabitaanka ciyaaryahanka ay go'aamin doonaan mustaqbalka ciyaaryahankan. Kabtanka kooxda Manchester United Bruno Fernandes ayaa sheegay sababtii uu u diiday dalabkii ugu weynaa ee kaga yimid Saudi Pro League iyo kooxda Al Hilal xagaagan. Isagoo la hadlay Sky Sport, Fernandes ayaa yiri: "Ma aanan dhammaystirin riyooyinkaygii halkan. Waxaan dareemayaa inaan weli wax ku biirin karo kooxda. Inta aan weli caawin karo kooxda, halkan ayaan joogayaa ilaa kooxdayda ay go'aansato inay ugu dhahdo Bruno, waqtigaagii waa u dhammaaday." Bruno ayaa sidoo kale qiray in go'aanka United uu adkaa maadaama uu dalab rasmi ah uu ka helay Al Hilal uu ahaa lacag aad u weyn, in ka badan lacagihii ay kooxda ka heshay xidigihii ugu dambeeyay ee caanka ahaa sida Cristiano Ronaldo. Wuxuu ahaa go'aan adag. Anigu waxaan ahay kabtanka kooxda, waxaa muhiim u ah kooxda. Inkastoo mararka qaar aanan fiicnayn, dadka qaar waxay u arkan lahaayeen iibkayga la yaab, laakiin aniga waxaan had iyo jeer ku adkaystay in Premier League uu yahay riyadayda oo aan rabo inaan halkan kula guuleysto. Bruno Fernandes oo 30 sano jir ayaa la rajaynayaa inuu saameyn weyn ku yeesho kulanka furitaanka xilli ciyaareedka 2025-26 marka ay la ciyaarayso kooxda Arsenal caawa. Warbixin ay qortay in Daily ayaa sheegaysa in Real Madrid ay u soo bandhigtay Arsenal qorshe isweydaarsi oo la guddoonsiinayo Rodrigo si beddelkooda ay uga helaan daafaca William Saliba. Hase yeeshee, Gunners ayaa isla markiiba diiday fikirkaasi, iyagoo caddeeyay in Saliba uu yahay laf-dhabarta daafacooda, isla markaana aysan ka fiirsan doonin iibkiisa xaalad kasta. Saliba oo 22 sano jir ah wuxuu qandaraaska uu Arsenal kula jiro ku egyahay ilaa iyo sanada 2027, waxaana loo arkaa ciyaaryahan soo bandhigay ama buuxiyay booska. Hase yeeshee, Gunners ayaa isla markiiba diiday fikirkaasi, iyagoo caddeeyay in Saliba uu laf-dhabar weyn ka yahay daafacooda, isla markaana aysan ka fiirsan doonin iibkiisa xaalad kasta oo dhacda. William Saliba oo 22 sano jir ah wuxuu qandaraaska uu kula jira Arsenal ku egyahay ilaa iyo sanada 2027, waxaana loo arkaa ciyaaryahan aan booskiisa la buuxin karin. Dhanka kale, inkastoo Rodrigo uu qandaraaska uu kula jira Madrid uu gaaraya ilaa iyo sanada 2028, haddana waqti ciyaareed ka xadidan ee uu ka helay kooxda Macallimo Alonso ayaa hurinaya wararka ku saabsan mustaqbalkiisa. Waxaa sidoo kale la sheegay in kooxa Premier League ay ku jiraan Man City ay ka fiirsanayaan dalabyo, balse Arsenal waxay caddaysay in kaliya iib toos ah laga wada hadli karo, go'aan aysan ka gaari doonin isweydaarsi haatan.